السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. saalax wuxuu ahaa nin beeraley ah. wuxuu lahaa beer weyn oo aad iyo aad u qurux badan, miro badanna ay ku yaalaan. sidoo kale magaaladana waxa uu ku lahaa dukaan. dukaankaasna wuxuu ku iibin jiray wixii oo qudaar ah oo beerta ka soo go'o iyo beeraleyda kaleba waxa uu ka soo qaado ganacsan jiray. maalin ayaa xaaskiisa u imaatay isaga oo beertii ka shaqaynaya dhex jooga. waxay tiraaday ilaahay ayaa mahad iska leh, beertan 10 sano marka hor markaan iibsanaynay waxaanu geeda ah ma lahayn. asagana wuxuu yidhaahday alxamdulilah, ilaahay ayaana waafajiyey in aan beertan iibsanno, laakiin waxay u eg tahay mid aan sugooti rabo oon aan ka dhiman rabo. waxay tiraa saasaa dhihin, ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu cimri barakaysan ku siiyo. wuxuu yidhaahday aniga hadda waa yeel ayaan ahay, waxay ii dhimanba waa wax iska yar. waxaana doonayaa hawshaan aan hayay ganacsigan iyo beertaba in aanin hogaamiya u doorto. waxay tiraahday waa xokey, anaga waxaa noo joogay 3 wiil. wuxuu yidhaahday 3 wiil ayaa mid ka mid ah hogaamiye ka dhigaya. waxay ku tiraahday kee baad ka dhigaysaa hogaamiyo? wuxuu yidhaahday waxaan ka dhigayaa midkooda amiinka ah ee runlowga ah ayaan u doorayaa in uu hogaamiyo hawshaan. habeenkii markii la gaaray ayuu 3 wiil isugu wacay. wuxuu yidhaahday aniga waxaan jeclaystay in aan idin doorto nin idin hogaamiyo, sababtoo ah aniga kadib waqtigayga waa qariib, waxaa laga yaabaa inaan geeriyoodo idinkoo isku dhex yaacsan. kii weynaa ayaa yidhaahday aabbo, aniga maadaama aan u weynahay aniga ii dooro. wuxuu ku yidhaahday yaa ku yidhaahday hogaamiyaha weynaanta unbaa lagu doortaa, soo ma ogid Usama bin Zayd ba asaga oo yar ayaa loo doortay ciidan tiro badan inuu hogaamiyo. ciidankaas oo asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku jiraan sida abubakar iyo kii dhexa ayaa wuxuu yidhi waayahay aabbo, aniga ii dooro, aniga ayaa isku wadi karo labadooda. maya uu yidhaahday anigu waxaan dooranayaa nin khibrad hawshaan u leh. kii yaraa ayaa yidhaahday soo ma abanaa iga wadaa, sababtoo aniga ganacsi badan ayaan sameeyey, safaro badan waan galay, hawshaana si fiican ayaan u garanayaa. wuxuu ku yidhaahday maya aabbo, anigu idin kala eexan maayo, laakiin midkiina waan idin jaribayaa. kaas oo ka soo baxo tartankaas ku guulaysta oon imtixaankaas ku guulaysta ka soo baxo ayaan u dooranayaa hogaamiyaha. waayahay maxaad nagu dooranaysaa aad nagu xujaynaysaa? wuxuu yidhaahday 3 gunad ayuu u dhiibay. gunadahan waxaa ku jiro dhayaaraad midka samir. waxaana doonayaa ninka samirtaas inuu abuuro. 1 sano kadib waxaan doonayaa in aan arko ninka geedkiisa oo si wanaagsan oo u baxay oo si fiican uga shaqeeyey. wiilashiina waayahay ayay yidhaahdeen. sidaas ayaana lagu shaqo bilaabay. nin kastana wuxuu bilaabay in uu abuuro mirihiisii. midkii weynaa geed fiican ayaa u baxay oo miro wanaagsan leh. xaaskiisii ayaa u timid. waxay ku tiraahday geedkan si fiican ayuu u baxay, laakiin walaalkaaga midka u yar geedkiis aad iyo aad ayuu u weyn yahay. wuxuu yidhaahday aabbihii ayaan aqaanaa iyo geed weyn ma fiiriyo iyo qurux ee wuxuu fiiriyaa geedka nacfigiisa iyo mirihiisa. aniguna waxaan ahay aabbihii dooran doonaa in aan noqdo hogaamiyaha. ayadoo aad u faraxsan ayay waxay tiri aniguna waxaa la oran doonaa xaaskii hogaamiyaha. aad inta u qosli ayuu yidhaahday magacaas waa sidaad ula baxday. waxay tiraahday walaalkaagii idin dhexeeyey aaway geedkiisii? wuxuu yidhaahday ma aqaan geedkiisa meelow ku abuuray, dabcan uu naga qariyey. waxaan u malaynaya wuxuu u qariyey in aan xasadno ayuu ka baqay. kii yaraa asagana geed weyn ayaa u baxay. isaga xaas ma lahayn, laakiin hooyadiisa soo waday. wuxuu yidhaahday hooyo geedkan abuuray ka waran, soo aabbo ulama shirtagi karo. way la yaabtay, waxay dhahday waa geed cajiib ah. waxay yidhaahday soo aniga hadda kama fiicni geedka hebel. waxay tiraahday anigu ma aha midka idinkala dooranayo ee waa aabbihiin. wuxuu yidhaahday walaalkaygii dhexaa cumar ahaa aaway geedkiisii? waxay tiraahday ma aqaan. wuxuu yidhaahday anaga waa naga qariyey, adna sidaas oo kale miyuu kaaga qariyey? waxay tiraahday dabcan kolley waa uu qarsaday geedkiisa, meeluu ku abuurtayna ma garanayo. laakiin cumar
asaga oo kii u dhexeeyay wiilasha geedkiisii maba uusan bixin oo xaaskiisii ayaa u imid ayadoo murugaysan. waxay tiraahday maxaa la murugaysan tahay? waxau yidhaahday anigu geedkii aabbii soo siiyey aan abuuray maba ii soo bixin, tacab iyo shiddo badan waan geliyey mana soo bixin. waxay tiraa waayahay oo maxaa geed kale u abuuri weysay? anigu aabbay geed kale abuuray ma dhihin, geedkaas abuuray yidhahay kiina waa u bixi waayey. hadda maxaa samayn doontaa? wuxuu yidhaha markii aabbo ii waco oo dhahay geedkaaga aawey, waxaan kula hadli doono kula hadla maba garanaya ayuu ku jawaabay. laakiin walaalihiis waxay aaminsanaayeen in uu geedka u abuuray uu qarsaday oo meel sir ah uu ku abuuray. sanadkii markii uu dhammaaday oo xilligii muddadii la gaaray, odaygii waxa u tegay kii weynaa oo geed ka shaqaynayo. aad u farxay, aabba soo dhawaaw geedkayga, soo uma jeedid miro fiican ayuu dhalay. odaygiina wuxuu yidhi geedkan soo hal sano oo saan ku noqday. wiilkiina wuxuu yidhi aabba geedkan habeen iyo maalinba waxaan geliyey juhdi badan ayaan geliyey. odaygiina waxa uu yidhaahday hagaag, inakaan walaalkaagii yaraa aan soo aragno geedkiisii. kii yaraa ayaa loo imaaday, aad iyo ugu farxay. soo dhawaaw aabba, geedkan waa aragtay sidaa oo u baxay. geedka wiilka yar wuxuu ahaa geed aad iyo aad u weyn, laakiin miro ma lahayn. kii weynaa ayaa yidhaahday geedkaagu miro ma lahan, anaa ka fiican oo miro kayga oo leeyahay. kii yaraana waxa uu yidhaahday yaa ku dhahay miro ayaa la qiimeeyaa. odaygii ayaa yidhaahday xukunkiina lama gaarin ee ha degdegina, na soo wada han u tagnaa walaalkiinnii kale. wiilkii kale ayaa loo imaaday. odaygii markii u arkay asaga oo naxsan ayuu soo dhoweeyey. odaygii ayaa yidhaahday wiilkaygii aaway geedkii aad abuurtay. wiilkiina wuxuu yidhi aabbo geed ii baxay ma lahan, geedkii waan abuuray wuuna ii bixi waayey. juhdi dadaal badan ayaan geliyey waana ku fashilmay geedkaas inuu ii dhasho. labadii kale waa ay qosleen oo waxay yidhahdeen waxaan moodaynay sakreed ahaan inaad geedkaagu qarsay, waxba maadan abuurin miya? odaygiina waxa uu yidhaahday male, caawaan isku imaanno, caawo ayaan dooranaynaa ninkana hogaaminayo. saddexdii wiil iyo saddexdoodii xaas iyo hooyadiiba habeenkii waxaa lisugu imaaday meeshii majliska ahaa. wiilkii dhexda ahaa iyo xaaskiisii ayaga in la doorto maba is sugayn ee meel ayay iska istaageen. labadii wiilkii weynaa iyo wiilkii yarana waxa ay fadhiisteen majliska ayaga oo isdhahayo hebel maa la dooranaa mise hebel. odaygii ayaa imaaday bacdi salaam kadib. wuxuu yidhaahday waxaa iga sugayseen in aan idiin doorto hogaamin doono howsha ganacsiga iyo beertaba. haa ayay yidhaahdeen. waxa u doortay kii u dhexeeyey saddexdooda ee cumar ahaa. wuxuu yidhi cumar ayaa hogaaminayo. labadii kale ayaa qayliyeen sabab sidee ku dhici kartaa? waxa uu yidhaahday labadiina waa diqiyaanteen oo khiyaano ayaad ku kacdeen. hooyadii ayaa soo bootay ayaa waxay tahay wiilashayda ma khiyaanoola ah say ku khiyaameen. wuxuu yidhaahday aniga mirihii aan u dhiibayey maba ahayn miro baxayo, miro meyd ah oon aan bixayn ayaan saddexdoodaba u dhiibay. labada kale markii ay mirtooda bixi weysay waa ay bedeleen oo miro kale ayay soo qaadeen. cumarna waxa uu sameeyey intii uu hogaami u tartami lahaa wuxuu doortay inuusan khiyaano samaynin oo iska suga oo yidhaahday anigu geedkaygii ma uusan bixin. laakiin labadan wiiloo kale waxa ay sameeyeen mirihii markay u bixi waayeen miro kale ayay samaysteen. sidaas ayayna igu khiyaameen ayuu yidhaahday. cumarna sidaas ayuu ku guulaystay oo wuxuu ku guulaystay ammaanadii iyo runtii uu sheegay, sababtoo ah ma uusan bedelin geedkii odayga soo siiyey. haddii uu ku fashilmayna waaba iska joogay. halkaas ayayna ku eg tahay qisadeenna. sheekadan maxaynu ka fahmaynaa? waxaadna ka fahmaynaa wixii run lagu waayey in aanan beenba aan lagu helin. وبالله توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.